بسم الله الرحمن الرحيم بل waxaynu eegaynaa qaabka cookbook company-ga ku furan ayaa waxa weeyaan magaciiba ka khaldamay qaabka company-ga magaca looga bedelo ayaynu eegaynaa markaad company-ga magaca ka bedelayso iminka company-geena aynu isticmaalaynaa waxaad aragtaan halka waxa ku qoran aan brightness-ka yara weyneeyo si fiican aad u aragtaan halka iminka waxa ku qoran company-ga aynu isticmaalayno Coop marka company-ga magaciisa waxa laga yaabaa in uu iga khaldamay markaan qorayay Coop waxaad ogtahay inay ka laba oo ay tahay iyo ba marka afar ba iga galay oo ba iga gashay ama oo marka bal waxaan doonayaa inaan magaca iska bedelo company-ga aan magaca ka bedelo waxa kale aan doonayaa haddii ay isku daaqad ba yihiin qaabka halka laga bedelayo magaca inaan tuso iyagana mid kale oo dheeraada waxa jira markaad cookbook set gareynayso company-ga markaad aad set gareynayso cookbook fiscal year buu kuleeyahay dooro fiscal year-ka uu kuleeyahay dooro waxa weeyaan xilliga aad xisaabta xidhaso dooro marka dadku waxay doortaan inta badan khalad bay fahmaan waxay moodayaan in uu leeyahay xilliga aad xisaabta ka bilaabayso dooro marka waxa laga yaabaa iminka iyadoo oo lagu jiro bishan September iyadoo lagu jiro ayuu qofka cookbook-gii adjust gareysanaya oo company-giisa aad upgrade-sanaya marka fiscal year-ka isla bishan buu dooranaya bishan markay dhamaato waxa weeyaan totally xisaabta waa laga xidhaya marka fiscal year-ku waxa weeyaan xilliga aad xisaab xidhka sameynayso haddii aad January koodeeda la jaan qaado waxa weeyaan 12aad bay kaaga eg tahay haddii aad quarter tahay oo 4 bilood aad bar xisaabta xidho waxaad ku beeganaysaa maalinta xidhmanayso marka bal waxaynu eegaynaa fiscal year-ka laftigiisa hadday kaaga dhacdo bil aad doonayno adigoo waxa weeyaan doonaya inaad xisaabta xidho bisha 9aad ayaa waxa kaaga dhacday bisha 10aad markaas haddii aad doonayso inaad hore soo marto haddii doonayso inaad dib u dhigto labadaba bal waxaan eegaynaa qaabka loo bedelo closing period-ka marka hore waxaad tegaysaa halka ku taalo company baad tegaysaa company markaad ku dhufato waxaad ka dooranaysaa halka ku taalo my company markaad doorato halkan waad aragtaan waxa kuu soo baxay daaqadna ay ku taalo my company legal name-ka inoo qoran waa waxa weeyaan waa kaas waa Coop halka USD buu ku dhigaya marka USD mala lacagta ah oo inuu eegayna hodhow toole waxa kaasna ku qorantay waxa weeyaan marka waxaan doonaynaa magaca already iskaga bedelno magaca waxaan tegaynaa halkaas inuu furno share baan furaynaa marka inuu share furno halka waxa weeyaan daaqada ma soo baxayso company information ku taalo magacii waan iska bedelaynaa marka magacii waxaanu ka dhiganaynaa company-ga waxaanu u bixinaynaa Muqdisho International company ayaan ka dhigaynaa magaca markaan magaca ka dhigno address-ka meesha ku taalo waxa ku taqaalaa waxa weeyaan suuqa Bakaara ayuu ku taalaa lacagta laftigeeda iska bedeli kartaa lacagta waxa weeyaan iska bedeli kartaa iminka waxa weeyaan dollar bay ku joogtaa haddii aad lacag kale ku shaqeyso waxa weeyaan dawlad ka bedelaysaa wadanka ku shaqeyso lacagta soo qaadayso UK haddaad ku shaqeyso UK baad dooranaysaa Australia Brazil meesha doonto baad dooranaysaa others baad dooranaysaa haddaad doonto waxa weeyaan haddii aad Soomaali ku shaqeyso others baad dooranaysaa dhulka waxa weeyaan waa casharkaynu ku eegaynaa qaabka loo bedelo lacagta aad doonayso Soomaali shilin laftigiisa ku jirta waa la dooran karaa cookbook-gaaga waxa weeyaan phone-ka ayaad ku qoranaysaa website-kaaga email-adaada waxaad gashanaysaa marka inta aynu qorno halkan waxaan tegaynaa legal name-kii baa ku qoranaysaa magacii legal name-ka isagana ka bedelaynaa magaciina hore ku qoranayna doono Muqdisho International Company markaas aynu ka qorano halkan hadaan doono kan laftigiisa meel ku soo koobi karaynaa inta badan magacyada isku mid intaas sib iyo code-ka iyo city-da iyo waxaas waxa weeyaan haddaad u baahan tahay waad qoranaysaa haddaan doonayna ma qoranaysid halkan lacagta iska bedelana others kana dooranayna markaas halkaas waan buuxinay taas federaalka iyo waxa xuguma baahnid halka waan ku sheegay halka ay ku taalo report information first month in year waxa weeyaan fiscal year-kiisu waxa weeyaan January bay qorantay
markaanu bedelayna xisaabta waxaanu horaynaa kala hadeen doono haddii marka hore khalad kaaga dhacay weyn haddii marka hore ku saxsan tahay waxba bedeli maysid waxaanu oranaynaa kale waxaad xidhaa August xidh xisaabta marayna August bishan inta ku jirnaa September marka Augustadii soo dhaafay ku oranaynaa xidh isaguna marka hore January buu haystay inuu xidho xisaabta inta markaan sameeyno okay baan leenahay waxaad aragtaan automatically magacii inuu isku bedelay Muqdisho International Company wata soo baxday koob dambe maqli maysaan waxa weeyaan saas inuu ku bedelay fiscal yearkina waynu bedelnay bal fiscal yearkina xisaabta isxidhayna eegno okay report weyn tagayna rest report balance sheet weyn tagnay okay markaan balance sheet tagnay may waxaan tagnay baan leeyahay waxaanu tagnay balkii report memories report okay profit and loss tagnay okay وكا حساب صحيح net income اللي مجرى هذا المكان all كدقنو وحوي محل الحجر مكورين سوق اللي مجرين مركز قاب كاس وحوي نهدو تلو واحد أركز تاسوق كله هلكا كوسو قراية open balance كهوس سوق كوسو قراية return in بكوسو قراية مركز واحد أركز تاسوق return in كله هذه return in هذا تقارن تكوس سا open balance كله أما دي مجا كواه كابيتال كذا وحوي already حسابتي ولا حري return in كده تقوقي لها شكل risk أما قف كلها أقدر open balance كيسو هرو قدر أيو كله هين marka imka waxa uu sameeyay waxa weeyaan laakiin si 10 horaba ayaan ku soo sharaxnay 10 dib raaca qaabkaas ayaad u bedelaysaa magaca u bedelaysaa fiscal yearkan u bedelaysaa subscribe gareysi marka 10 dib baan soo gelinaynaa idin ku soo dhacaan waxaan ka tagay cookbook inta badan ay isticmaasho Soomaalidu waxa weeyaan karaak maaha mid purchase oo la soo iibiyay marka waxaad sameysaan cookbook markaad computer-ka daartaan suuq cabar computer-ku soo kaco ilaa 5 mir meelaha suuq computer-ku si fiican caadi soo kaco aad refreshment aad doonto siiso aad refresh tiraahdo si fiican oo kugu soo kaco daaqado dhan isku furaan marka cookbook fur laakiin computer-ki oo marka aad shiday markiiba ka gaarsiyo cookbook soo kaco fur waxa weeyaan khalad baa ku iman kara waa uu ka bixi karaa haduu doono markaas taasna way ka talo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh